dhaqan degmada Garadag waayilka waxgaradka haweenka dhalinyarada ardayda iskuulada ayaa si kor loo cambaariyay shirkadaha isgaarsiinta ee Samtel iyo Telesom iyagoo sheegay in ay yihiin shirkado gabay baahiyaadka aasaasiga ah ama adeegyada aasaasiga ah ay siin jireen dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Garadag sidoo kale iyagoo dadweynaha uu sheegay in shirkadahan noqdeen shirkado dadka ka ganacsada oo kaliya isla markaana aan ku soo kordhin wax faa'iido iyagoo dadweynaha ku dhaqan degmada Garadag muddooyinkii ugu dambeysay ka caabanayay internet xumo soo wajahday iyagoo dadweynaha sidoo kale sheegay in badan la hadleen mas'uuliyiinta shirkadahan isla markaana sheegeen inay wax ka qabtaan baahida ay tabanayaan dadweynaha ku dhaqan degmada Garadag balse aan cidi dhag jalaq u siin dadweynaha sheegay isla markaana si weyn ugu adkeeyay in mas'uuliyiinta shirkadaha Samtel iyo Telesom ay baaqooda u dhagan nuglaadaan isla markaana wax ka qabtaan baahiyaadka ay tirsanayaan dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Garadag waa kuwan iyagoo dadweynaha ku dhaqan degmada Garadag ka hadlaya arrinka ardayda oo faa'iido internet kala waa aad baad mira hadii la keeno internet oo baahnaba online bay ka dhigan lahayn ardaydu arrin inta telecommunication-ki isgaarsiintii oo iyaduna waxbarashada qaybka ay iyaduna markaa week noqotay oo hadda istaado internetka aad wax ka raadi ama casharka istaado revision ka qaado aanad helayn internet available taasna waxaan ka codsanaynaa shirkadaha isgaarsiintu inay markaa hadda siiyaan iyagoo naga faa'iideysanaya la siin maayaan sharaa'iga degmada ka shaqaysta ee ay ka mid yihiin shirkadda Telesom shirkadda Dahabshiil waxaanu aad ugu dhaliilaynaa inay ka gaabiyeen baahiyihii xaq loogu lahaa ee dadku xaq ugu lahaayeen oo ay ka mid yihiin inay ku soo celiyaan dadka xoolo ay ka qaadeen wax kaga soo celiyaan taraya hadalkaygan shirkadaha isgaarsiinta waxaanu ka codsanaynaa inay keenaan internet dadka lu faa'iideeya oo waxan meesha ay keenaan aan ahayn internetkan degmooyinka kale yaala ha keeneen iyaguna dab ugu jirta annagana dab baa noogu jirtay waxaan leenahay shirkadaha waxa yar halka yaale aan ku soo xidheena waxba taraynin ama fujista ama internet xawaarihiis uu sareeyo oo wax laga faa'iideysan karo kana degmada taan xaga hay'adaha Garadag ka hadlaya arrinka waa madar sare Garadag